taagnaa inuu xubin ka noqdo midowga Yurub waxaana taageero ay siiyaan dalka Greega oo isagoo colaad guuni ay kala dhaxayso Turkiga halka dawladda Mareykanku sanadkii hore ee 2017 ay isku dayeen inay inqilaabaan madaxweynaha shacabku soo doorteen ee Recep Tayyip Erdogan markii qorshahaasi fashilmana waxay Mareykanku u wareegeen inay taakulo military oo aan qarsoodi ahayn si bareer u siiyaan jamhadda Kurdiyiinta ee PKK oo ah jamhadda muddada nus qarniga ka badan dagaalka kala soo horjeeday dawladihii kala dambeeyay ee dalkaasi Turkiga soo xukumayay haddaba barnaamijkeena xogaha dahsoon waxaynu ku milicsanaynaa qaar ka mid ah sababta keentay inay dalalka reer Yurub iyo Mareykanku colaadiyaan dawladdaasi Turkiga dhinacyo badan ayaa laga eegayaa sababaha colaadahaasi sida cabsida ay dalalkaasi ka qabaan inay soo noqoto khilaafadii islaamku iyo saameynta dhaqaale iyo baayac mushtar ee ay shirkadaha Turkiga ku yeesheen daafaha caalamka isagoo Turkigu hoggaan u ah isbedelada bulsho iyo kuwa siyaasadeed ee ka dhacaya dalalka islaamka qaarkood taageero aan gabasho lahayn siiyo shacabka reer Falastiin haatanse waxaynu barnaamijkeena u gaar yeelaynaa arrinta ku saabsan warwarka ay dalalka reer galbeedku ka qabaan xuduudda military ee soo taraysa maalinba taagta ee ay Turkigu sii yeelanayaan xuduudda oo badankeeda ah mid lagu farsameeyay gudaha dalka Turkiga oo ah wadanka labaad ee ugu ciidamada badan gaashabuurta NATO ayaa hubka uu samaystay waxa ka mid ah gantaalka noociisu yahay SOM oo ah gantaal lagu hago qalabka GPS-ka isla markaana dabagala oo bacsada bartilmaameedyada dhaqdhaqaaqaya waxa kale oo haystaa gantaalka OMAD oo ah gantaal lagaga hortago taangiyada waana gantaalka isagoo ismaamulaya ee tigsanaya hadafka lagu leeshaamay waxa kale oo jira gantaalka Kataanga T-Ray 300 oo loo adeegsado bartilmaameedyo taagan iyo kuwa dhaqdhaqaaqaya labadaba gantaalka kale ee Atmanga oo ah gantaal lagu baabiyo goobaha cadowga ee badda dhexdeeda helicopter nooceedu yahay Atak T129 waa diyaaradda ciidamada Turkigu adeegsadaan oo ah diyaarad duulimaad xiriir ku jiri karta muddo 750 saacadood waxa kale oo jirta diyaaradda Hargush oo loo isticmaalo dhanka tababarada waana mid ka mid ah diyaaradaha lagu bixiyo tababarada heerka dhexe diyaaradda ilaalinta ee Razga waa diyaaradda habeen iyo maalinba soo basaasi karta cadowga hubka qoryaha boobayaasha ay Turkigu samaysteen waxa yana ka mid ah qoriga Bora 12 oo dhuuntiisu tahay 62 mm waana qoriga tiradiisu gaari karto 1200 mitir madfaca Fintana T155 ayaa madfaca daqiiqadiiba dhuuntiisa ay ka bixi karaan 6 xabadood ee waaweyn ee rasaasta waxa kale oo hubka weheliya taangiga noociisu yahay TAI waana taangiga ogaan kara isla markaana baabiin kara gantaalaha cadowga ee isaga ku soo wajahan Turkigu waxa kale oo ay samaysteen gaariga ciidamada qaada ee AM waana gaariga aan habeen u baahnayn leedo shito waxa kale oo ciidamada qaadi kara gaari noociisu yahay Kerem waana gaariga ciidan ee goyn kara masaafada 800 kilomitir isagoo aan wax shidaale lagu kordhin taangigiisa gawaarida ay Turkigu ciidamada qaadaan waxa kale oo ka mid ah gaariga Cobra waana gaariga 4WD-ga ee aan celin karin biyaha dhoobada buuraha iyo bacaadka toona gaariga gaashaman ee dagaalada ee Barsa waxa uu ku rakban kamaradaha sheegi kara khataraha fog iyo kuwa dhow ee goobta colaadaha dhanka badda haddii aynu yareeyno waxa halkaa markabka dagaalka ee Milga oo ah markab xawaare dheer ee ku dhaqaaqi kara waxaana weheliya markabka kale ee Ida oo ah markab yar oo aan cidina dushiisa saaray waxaana lagu dhaqaajin karaa oo lagu wadi karaa laguna hagi karaa tiknoolajiyada dayax gacmeedada